wewe Nazure Makiyako مو مليس هذا بدن فرحة ولا كتير كسايان بفميلي شافتين أو كسايان سومالي محمد أنت جو لايف ka isku ilaalinay لايف كسكم إلى مركا haye hadda ayaan soo degnay caadi ma aan Jomo Kenyatta ayaa joognaa dhalinyartii meediyaha ayaa nawahalaya idinka ma saan oo galooyo waaye Kuna wewe Atau sangat koko dah. wewe shafto فلوسه خير إن العتمة مو جوما كياتا اسكوني ما نسي عن أسر دوينو ورالكين عطوش برمدا كوبات عطوش يرى يسيدو كري جديدو أو كميدا بهذا عطوش ولا شقيان دور ميديا سود هذا ندين لا يحد الجيران قروش بدن صوب بنان بحين سلام مركزنا هالكانوا إمادين سيدا نيروبي بيكوسو دوين الهين لبس بدن وضع عيايو وزير marka waxa ku laga adeegyahay maqaayadaha hadii siin doona ayay dib u dhiibi doona wariye baashi marka ugu horeysa yaa siinaya iyo kelmadiisa soo dhaweynta waxaan soo dhaweyn heer caalami ah u sameeynay sidoo saaxiibkeen ku sheegay wasiirka dhimiska iyo wasiirada dhimiska walaalkeen Toosh iyo xaaskiisa sharafta badan maslaxo iyo sidoo kale walaalkeen guduudow waxaan leenahay kusoo dhawaada minkiina waaye asmartiyeen afreer johara ee gilis waxaan rajaynayaa insha Allah magaalada inaad noo kala kicisaan noo shidaan barnaamij heer caalamiyana alla imaataan sidoo Atoosh hore u sheegay wuxuu dhahay hees caalamiyan qaadi doonaa oo show weyn socdaal adoo heesay baaqul boo rajaa ay gashay hees uu qaadi doonaa kuna wewe alla dhaha diyaar garow macalinka dhaadada ما شاء الله waxaan soo dhaweynayaa walaalaheen durdur media walaalkeen Atoosh yare ninka kaliya aaminsanahay iyo marwadiisa maslaxo isoo kale walaalkeen guudow de waxa meesha ay ku taagan oo 3 saac ku taagan waa jacayl aan qabno soo dhawaada idin leenahay muqdisho hada ka timaadeen muqdisho yare baa timaadeen ma sha Allah marka soo dhawaada idin leenahay insha Allah waa showgooda ma sha Allah showgooda soo dhawaada ilaa sharaf iyo karaamar dhow joomada wada cuni doona insha Allah iyo soo laaban doona wariye daacad ayaa siinaya Atoosh geesiisu istaago muujinaya Atoosh ka dheeriya shafto mu ku khawaraysa ugu horeen Atoosh maslaxo soo dhawaada halka Nairobi Allah Nazure Makiyako karibuni sana alinda meeshaan Nairobi waaye aad baan ugu faraxsanahay dadka quruxda badan aad aragtaan ilaa maanta dhan waxay u taagnaayeen waa in idinka in soo dhaweeyaan magaaladu waa magaaladiini leenkama lahan walaalihiin ayaa jooga soo dhawaada laakiin hal mid ku darsa meeshaan maqaaxidii dhimiskii warkeed ma jiraade shaafta dhan lagama yaqaan jooma bisa cunaysa jooma maxaa la sooma شافت إن la qabsiin ayaga bariisin sooma marka aad baan u faraxsanahay soo dhawaada markaan wariye xudayfa ku celin waayahay bila bashiir maxbuub iyo gabdhaha garab taagan yaa saan hal mar u soo wada marin doona team dhamis iyo anaga isku imaan doona wali gadana idin barinaya bila saan isku suuqa duru ka dhacay waa bilkii
harjeedina runtii waxaan halka u taaganahay inaan soo dhaweyno lamaanihii qarniga walaalkeen Catoosh Maslaxo iyo sidoo kale cameraman Gududow runtii aad aan ugu faraxsanahay waxaad leena ku soo dhawaada Nairobi ku soo dhawaada magaalada labaad dadkan wadada waa taqaanaan oo caan ah social media caan ka ah runtii aad aan ugu faraxsanahay in dadka quruxda badan ee maanta halka u taagan inay soo dhaweeyaan lamaanaha qarniga iyo sidoo kale cameraman-kooda oo runtii munaasabadtan ka weyn baa jiri doonta oo dhammaan reer Nairobi ay ka soo wada qayb geli doonaan oo soo dhaweyn khaas ah loogu sameyn doono insha Allah mahadsantiin waay bil soo dhaweynayna walaalkeen maasha Allah waxaa la soo dhawaada wax badan aan idinka daawanay kaamiradaha laakiin maanta waxaan wala joogteen si leef ah waxaan leena welcome to Nairobi waan idin soo dhaweynayna insha Allah waayahay baashu waxay soo xangagaabataba waxay imaatay xilligii Catoosh iyo balse waa laga horeeyayo waxaa la nin baa ka weyn amiir baa ka weyn waxaan siinayaa aabaha macalinka suxufiyiinta Soomaaliyeed ustaad Koronto inta taqaanada William loo maleeyaa moogiyo waagi siyaad bar wala shaqeynay Faiz Manal jiraan ahay aniga koode anaa 20 jira Catoosh 20 hada hadda 20 jirta ana meeqa jira ugu horeyn farxad bay inoo tahay dhammaan asxaabta kala duwan halkan ku sugan inaan maanta Jomo Kenyatta u joogno soo dhaweynta walaalo iyo saaxiibo nagu qaali ah Maslaxo iyo saygeeda Catoosh Yare iyo saaxiibkay Gududow runtii dhammaantood waxay ka wada tirsan yihiin team Durdur Media waxaan filayaa hadde dadka baraha bulshada wax badan ayay filayeen reer Nairobi inay maalin maalmaha ka mid ah Catoosh iyo Maslaxo ay booqasho ku yimaadaan maanta marti ay inoo yihiin way nala joogaan halka aan ku sugannahay ma ahan Muqdisho waa Jomo Kenyatta Nairobi ay joogaan waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada meeshuna Muqdisho ma ahane dhaxan fara badan iyo qabowna uu ku jiraa soo dhawaada shaafta ma jirto shaaftana qofka uu ka cisida ku xirantahay shaaftada waa la ka caalay qofka uu ka cisida ku xirantahay waayahay waxaan soo dhaweyn doonaa wali wasiiradda iyo wasiirka dhadhamiska dib aan u dhiganayaayo Gududow waan soo dhaweynaya marka hore ayaga waa u soo laabanaya maasha Allah وسلامتين أصحابتا ولا لها أو ما أنتن أو أنتن وجوجي سود بنتين أو سلامتين ما هو رئيسه لنروبين وسلامتين لنقدش وحيلنا نروبي جوجنا لنروبين وأي إمانة هالسود بيو ما أنت وامك هو رئيسه إمانة أد شرف إيتهاي أو إمانة النروبي إن شاء الله وتعالى وحكسو اسيو قد بنا أصليه هاي واي هاي وزير كده دبس كان سين دونا كسوهيلي وكم بالله بدنا مركب أورا صورته لا وضح بسيط ورحت عطش جدك سلام ديك أوكي أنا حر أوكي ناست ميديا أوكي أنا يمكن أوكي استركي قصة خلخلوع مين خلخلوع ها وكا هاي قدك سلام عطش نزور مكياكو ما أنت وحا فرحد وين إنه نجي إيو حاسكي مصلحه anigoo ah wasiirka dhamiska marwadeeda koowaad ee Maslaxo ahna wasiir ku xigeenka marwo labaad ma jirto xaaskii Maslaxo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee reer Nairobi madaxda reer Nairobi qof walba oo noo faraxsan aniga xaaskeyga iyo team Durdur Media maanta inaan Nairobi imaano waqti badan dad badan ayaa sugayay haye hadda ayaan soo degnay caadi ma aan Jomo Kenyatta ayaa joognaa dhalinyartii meediyaha ayaa nawaalaya idinka ma saano galooyo waaye shacabka reer Nairobi waxa jeclaa kulankan ka weyn in sida walaalkeen uu sheegay aan sameyn doono maanta waa maalintii koowaad aan Nairobi imaano waa u wada mahad celinayaa mas'uul shacab qof walba oo maanta halkaan noo taagnaa waqtiga badan waa u mahad celinayaa waxaana si ay sanatarka mustaqbalka ii soo duceeyay هذه قبل كيس أنا ترك هير شوال waxaad ku dartaa meesha aad joogto waa Nairobi Soomaali kaliya kuma daawanayso dadka meesha tahay dad Soomaali ah ayna ku jira reer Nairobi Kiswahili kula hadalo Nzuri Makiyako wewe Jakuka Ingiriis saa ku hadla ma Kiswahili ku soo Peace of Allah be upon you and all people Kenya the country best
ورا سلام يا مصلحة دينك لوقدا waxa u xilsaaran maslaxa waxaan siin doonaa Mrs. Dhadhamiso wasiiradda dhadhamiska marwada koowaad way diiday waxay sheegi doonto sababadii inaa ma saxsan gacdheer lagu sheegay qaybta dhadhamiska bis may gacanta ku fiican isku aruurso horta marka marwada koowaad waxa ku diidaa xeetaa marwada waad ma jirto xaaskeyga inaad dhahdo xaaska maslaxa dhahdaa ka muhiimsan markay mid labaad imaato xaaska koowaad leeyahay dadka salaam hay marka taa oo salaamna dagaalka soo laabani waa ka hadlaan ninka waa iloosiinin marka asxaabtu waa idin salaamay reer Nairobi anig afkayaadka ma aqaano Soomaali Maxamed inta joogto live-ka isku ilaalinay live-ka isku ilaalinay marka idinka farxad idinka doonina inaa farxad na siisaan inta aan joogno Nairobi insha Allah Soomaaliland ku tishinoona reer Muqdishona aad ay u maasay ma lagu sheegay horta gabarkeeda lagu daro rabay ninkeena hadda iga wada rabtay baal dhaxdiisa ma aqaan af wax kale ku hadlaan waa fahmi waayeen makiyaako ay filan oo ka kacay waxa ku dhacana magtaay ay u qasashay asay dhahday go bila ku sheegay ma lagu sheegay gabarkeeda in lagu daro horta ma lagu dari karo dooda ka qabaa ma lagu sheegay baarta waxaaba Iran naag Soomaali aan isrif karo is fahmi karin in lagu daro naag Kenya wixii ii soo ma ogahay inta kale waxa ku tashanaysaa meeshan dhadhamis ma jiro canjeera iyo chicken iyo bariis ugali yaa jiro ugali kaale ugali tomato ugali wax la jiro ugali ma dhadhaminaya ha ugali wada ay lacagtay kala mixay عطش الباركن يعلي لعبتك البحي الدوان يعلي الصباح shaafto waa jirta hadda inta soo soconay soo dhaweynta la diyaarinayo qof walba marka maanta waxa soo dhaweynaya Catoosh iyo Maslaxo wuu qoslaa maxay leeyihiin sababta uu qoslaa qof walba marka magaciina la sheego sababta dadkana waxay leeyihiin anay shactiro la yaalanani daafilaa dadka weenu qoslaan mooho waxayna qoslayaan saameynta iyo waxaas iyo saameynta dhiminta iyo cuntooyinka noo qosla wax kale ma ahan marka ma malaysaa dad badan farxadooda ka tagnaysa ka saayaan ba family shaafteen oo ka saayaan beer Catoosh dadka sida hadda lagu sheegay markii la Catoosh iyo maslaxa la keenaya marka in ku qoslayaan markii laga soo tago cuntada dhamiskaas iyo waxaas maxaa kale lagu qoslays dhigi kartaa in oo lamaana farxad nahay oo dadka ka faraxsiino gabadha madowgana diyaar u soo gabar kale hadda diyaar looma waayahay maya hal su'aal aan qabaa tartankii oo xamar ka socday ka qayb galay meeshan dad badan socday laga reeyay ada ii bixi xalay waa badi todoba xabaa qaat ay waayahay waxaa jiri doonaan munaasabado kale oo la isku arki doono reer Nairobi iyo Catoosh iyo Maslaxo ay ku kulmi doonaan oo wali Catoosh uu heesi doonaa wuxuu yiri baaquri boy iyo haday heeseen codkeyga inaad tijaabiyo Soomaa marka intay diyaar garoobayaan ayaga waan isku imaan doonaa sidaas iyo nabadgelyo aan idin leeyahay reer Nairobi arkaysaa gaariga ugu shidan waayo waa gaari boqortooyo waxaana iyo Catoosh iyo